السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسنا خيارتنا داوانيسا كسو دوادا warka telefishin karays anigu waxaan ahay Anas Maxamed Soomane qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dad hor leh oo gaaji haraad ugu geeriyooday deegaano kulaala degmada ceel waaqi gobolka Gedo xilli Gedo ay kamid tahay goobaha xilligan ay ka jirto abaaraha baahsan ee dalka ku dhufatay khilaaf xoogan oo ka dhashay jadwalka dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka 12aad ee dalka oo ay dhawaan soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal xilli qaar kamid ah madaxda dawlad goboleedyada dalkana ay si weyn uga soo horjeesteen jadwalkaasi madaxweynaha Somaliland oo kulamo gargaar ka wada dalka Mareykanka xilli kulan gaar ah oo la qaatay mas'uuliyiin sarsare oo ka socda golaha ammaanka qaranka dalkaasi dawladda Mareykanka oo ciidamo hor leh xilligan keenaysa Soomaaliya xilli ciidamadeeda dhawaan ay duqeymo hor leh ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolada Jubbooyinka iyo waliba Mudug sidoo kale warkeena intaan ku guri jirno waxa daawan doontaan Ukraine oo xilligan rajo wanaagsan ka muujisay wada hadallada ay la leedahay dhigeeda Ruushka xilli uu si socdo duulaanka Ruushka oo ku qaaday dhigiisa Ukraine qodobadaasi qodobo kale iyo hadba wixii nagu soo kordhay ayaa daawan doontaan u diyaar garooba mar kale kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartana daawanaysaa sidaan ordhaca warka idin kugu sheegay dad hor leh ayaa gaajo iyo haraad ugu geeriyooday deegaano kulaala degmada ceel waaqi ee gobolka Gedo dadkan ayaa la sheegay inay gaarayaan 5 qof isla markaana ku sugnaa deegaano ku dhow degmada ceel waaqi ee gobolka Gedo waxaana la sheegay inay u geeriyoodeen baahi iyo haraad dadkaasi soo wajahay bedel daahir waxa uu kamid yahay dadka goobjoogayaasha isla markaana ku sugnaa goobta ay ku geeriyoodeen 5taasi qof oo la sheegay inay leysay abaar iyo wariba dhibaatooyin halkaasi ay kala kulmeen Rais Television ayuu waraysi gaar ah siiyay wuxuuna ka warbixiyay dhacdadaasi halka ay ka dhacday iyo waliba sida xilligan xaaladdu ay tahay iyo dadka xilligan ku haray sida xaaladdu ay tahay iyo geerida dadkaasi sida ay xilligan ku timid Diftaax Xareed ayuuna uga waramay wararkii ugu dambeeyay dadka gaajada ugu geeriyooday deegaano kulaala degmada ceel waaqi ee gobolka Gedo waxa imka si toos ah khadka ugu jira bedel daahir ciir alle oo markaasi ah gudoomiyaha dhalinyarada markaasi isku xilqaantay inay dadka iyo dunyada markaasi ay samafal u sameeyaan ama ay markaasi gurmad degdeg la gaarsiiyaan ururkaasi markaas waxa la yiraahdaa Ali Xisaan gudoomiye ugu horeyn ku soo dhawow Rais TV wararkan soo gaaray waxay sheegayaan in deegaanka ceel waaqi deegaano kale ka tirsan gobolka Gedo laga soo sheegayo in dhimashadii ay bilaabantay oo markaasi dad ay gaajiya haraad dartoodu dhinteen bal arrimahaasi gudoomiye ugu horeyn maxaad nooga faahfaahin karaysaa abaar waa jirta ilaahay amaaga foogay oo naga dulqaado saacadaha ugu dambeeyay warbixinada la soo gaarayo 2 qof oo caruur ah ee ku geeriyootay meel la yiraahdo Ilaale oo adiga nawaaxiga degmada Qalwa oo isku ereeda hoos imaata marka gudoomiye bedel sidoo kale waxa la soo sheegayaa in 2 qof oo kale deegaano ka tirsan Gedo ay ku geeriyoodeen arintaas wax ma kala socotaa adigu wallahi horta waa meesha la yiraahdo hadda galbeed Abdullah Amal geeriya laga sheegayaa xilligan waxa waa hadda geeri ma la sheegayaa ani lama dhigi karo waqtigan maanta ku jiro waqtiga dheerigii isku dambeeyay ka soo dhamaadeen dadkuna waxay u socdaan ama ay u dhawaanayaan meelaha ay biyaha ka dhow yihiin meelaha markay biyaha ka dhow yihiin waa ka fog goobaha ayaga ah dadka dhibka haysta waxaa kamid ah dadka awal dadka waa dadka reer guuraha waxyaabaha lagu guuri jiro waxaa kamid ah marka dameeraha oo ay saartaan kareetooyinka iyo awrta xoolihina dadkii hore u dhaafeen dameerihina waxaa arkaysaa kareetadii uu waday iyo asaga ay maaragtay ku siyaadaan ay ku dhinteen markaas marka waxaa waaye waxay u dhimanayaan marka xaaladaas way u dhimanayaan waqti adag oo qorax kulul oo qofkii aadan ugu socon jirin waa la marayaa dhibaatada kale oo sii dheer dadka waxaa waaye dad inta badan waxaa waaye ama gurmad degdeg oo maaragtay laga sameyn karo kuma jiraan waayo meelaha ayaga network ma lahan inta badan sidaad ogtahay aqoonooyinkii maaragtay qalabka isticmaali jiray horey u burburiyeen meelaha Kenya ee dadka burburiyey marka isgaarsiin la'aanna waa usii dheer tahay waayo haddii isgaarsiin jirto waa nafaf la badbaadin karo waa jiri lahaayeen sababaasna waa keentay maaragtay dhimashada waa keenaysaa
gudoomiye bedel ururkaaga Ixsaan ee dhalinyarada ah ee markaas isku taagay inay dadkaasi dhibaatadu haysato u gurmadaan marka aad xaaladaha aad ka waranto dadku nolol nooceeya ay ku nool yihiin masala oran karaa xukuumadda ama dawladda federaalka ama waxa weeye Jubbaland wax kaalmo ah dadkaasi ilaa hadda ay u bilowdo la gaarsiiyay أنا ما كنت أنا وحوم لنا يا طبعا كان وصل مقطع مدة صدق أنا بدو وهوا أنا توفي عن مهلي أبارك التوجه قطعي تقول أنه هوا مرة طبعا أكون لهم إهان باش أنا يروحون مدرسة في إيماني طريقة ما مكتوبلان أكتسبناي من دورة دوا مرة حاجة لازم تكون مرة وسواش اللي في كنا واي تقول أربعة إلى هاي أربعة كذا مفهوم وحري هاي dadku maanta raba in la badbaadiyo oo wax loo qabto dadka magaalada jooga waa dadka miyiga jooga waaye marka waxa waaye hadda wax xagga mana sugayno hadda ama dhahna dadaan awanana ma dhaheen hadda idin imaaneen oo ee loo imaaneen inaan ognahay inta badan dadka marka waxyaaba ay ka dhiman lahayiin xoolaha ummadda Soomaaliyeed oo maaragtay isku yar naxariisato isku dafarayso ninkii laba gooy soo dhiigi karo ninkii shan gooy soo dhiigi karo oo hadda wax hadda dowlad iyo ama maamul Jubbaland ay dadka wax tareen oo aan sheegi karo qofkiiba aad ka jirto marka gudoomiye dadkani maxay ku nool yihiin maadaama oo xoolahooda intooda badan ay ka dhamaadeen meeshina naq iyo baad iyo biiba aan oolin xagee kaga yimaadaan tabarucaadka la soo gaarsiiyay walaal dadka hadda aan ku sheegayo oo hadda soo xamaawayo wax tabarucaad oo dadka horta la gaarsiiyay si loo qabto dadkaas waxay iska hayaan dad xoolahooda iska dhaqado abaarta intii soo reebtay ilaahay ku aqoonsan xoolaha dhulkii hadda waxa waaye wax yar oo qalab ka weynayaan yaas bay ku dul yarheysteen neefka markaas u yartay kara suuqa iska deesan inkastoo xoolihii suuq lahayn dadkii markaa hadda waxa waaye naftii markay imaaday marka waxa waaye xagee marka biyaha waaye oo aad ka gaartaan xoolihii hadda waa ka soo tegi lahayn aroortii iyo xoolihii way isku wadaan dadkan marka miyiga waxaa laga yaabaa niyad ay dhaqdaan oo hadda gobolka gado saddex biyo la dhaqdo lo iyo ari geel waxaa ay sheegay labada biyo ku badan lo iyo geel ku badan ari geel ku badan geel marka wuxuu aaday dhulkaas oo ama la yiraahdo biya marka ari iyo neefafkii oo irmaan ay u maarmilaa inay soo wataan marka hadda waxay usoo dhawaanayaan meelaha biyaha leh usoo dhawaanayaan marka waxaa ka jiro waxaa waaye marka meesha biyaha leh intayda soo gaartay dadka horta dhimanayaan oo ku madxeerada markii laga hortago amaankan istaan ahaan weli hadda dhaqaaqaadka ma bilaabin oo dadkan waxaa waaye markii u horreysay aan wax qaban dadkan soo barakacay oo degmada kusoo barakacay baan wax siinay oo iyo dabaraashaan siinay xaqiiqdii dadkan waa dad aad u liito oo maanta waxaa waaye xaalad adag ay sugayaan waan iska dareemi karnaa hadda markii hay'ado iyo waxa la yiraahdo waqtiyadan processa qaadanaya kama gaari karaan dowlad warkeedana ma jirto maamul hadda marka inuu meesha ka tagana meesha aadi karo ma jiro oo kuma karo marka ummadda Soomaaliyeed oo dadka deegaanka degan qof wuxuu dhaamo inuu gaarsiiyo waa markasta ay u badan tahay waxyaabaha marka sii dheerna waa gabraadki waa teenadaantaas oo laga yaabo hadda ilaaladaas iyo dhulkaas ateena waxa u haajirta awsfur baa u haajirta degmada tuulada la yiraahdo awsfur marka waa la gudbiyey oo dhulkaana la sheegay mar hore malaha marka waa inay la tuwaaceen waa kusoo dhawaadaan waa ceel markii 20 kilomitir ama usoo jirsadaan ay laga yaabaa ateena inay helaan marka dhibaatadaasna waa iska dhibban tahay marka xaaladaasna kuwa u soo inoo dhibban tahay waad mahadsan tahay bedel daahir ciir alle ayuu kaasina ahaa markaasi gudoomiyaha ururka Ixsaan oo dhalinyaro isku xilqaantay sidii ay dadkooda iyo markaasi dadka tabaalaysan ugu gaarsan lahayn gurmad aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa gudoomiye khilaaf xoogan ayaa ka dhashay jadwalka dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee dalka oo dhawaan la doortay xilligan dalka ka socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya jadwalkaasna waxaa si weyn uga soo horjeesta qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka jadwalkan ayaana waxaa dhawaan soo saaray guddiga doorashooyinka heer federaal waxayna si weyn uga hadlayeen dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka 11aad oo wali doorashadooda guud ahaan dalka ka socota maamul goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo fadhigoodu yahay magaalooyinka Baydhabo iyo waliba Dhuusamareeb ayaana si weyn jadwalkan uga soo horjeestay faafahinta warkan ciise maxamuud guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa xalay soo saaray jadwalka soo xareynta xildhibaanada dooran ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya
iyagoona shaaciyeen ugu dambeyn bisha dambe 14 Abriil la qaban doono xaflad lagu dhaarinayo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka sida lagu muujiyay jadwalkan 16 bishan oo ku beegan Arbacada maantay ilaa 23 bishan ayaa loo qorsheeyay in lagu soo ururiyo dokumentiyada xildhibaanada labada aqal iyadoona 24 ilaa 29 bishan la qorsheeyay in la hubiyo dokumentiyada xildhibaanada inta u dhaxaysa 31 bisha Maarso ilaa 4 bisha dambe ee Abriil waxaa loo asteeyay in la shaaciyo natiijada rasmiga ah ee doorashooyinka baarlamaanka iyo in la soo xareeyo dhammaan xildhibaanada labada aqal 5 bisha Abriil ilaa 10 bishaas ayaa waxaa loo qorsheeyay in shahaadada xildhibaanada la siiyo dhammaan xubnaha la doortay ee labada aqal ee ka soo gudba hubinta rasmiga ah ugu dambeynna waxay guddiga sheegeen in 14 bisha dambe ee Abriil la doonayo in xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu qabto xaflad lagu dhaarinayo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 11aad ee dalka dhinaca kale daqiiqado kadib markii ay guddigu soo saareen jadwalkaas ayaa waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada sida Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya war-saxaafadeedyo isxigxigay oo ay soo saareen ayay ku sheegeen inay arrintaasi tahay tallaab sharci darro ah isla markaana aysan waxba kala socon waxay kaloo sheegeen tallaabada guddigu qaaday ee tahay mid aysan awoodeeda lahayn maamulada ayaa carabaabay inaysan aqbali doonin jadwal iyo go'aan kasta oo aan ka soo bixin madasha wada tashiga doorashooyinka qaranka arrintan ayaana ku soo bogmaysa xilli shalay ay soo gabagabeeyeen maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed doorashada xildhibaanada golaha shacabka madaxweynaha Somaliland iyo wafdigiisu oo hogaaminaya ayaa kulamo gaargaar ka wada dalka Mareykanka xilli kulan gaar ah oo la qaatay mas'uuliyiin sarsare oo ka socday golaha ammaanka qaranka dalkaasi kulankan ayaana waxaa si gaar ah loogu la furay arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada faahfaahinta warkan Cabdifataax Xareed ayaa eegaya madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigu oo hogaaminaya saddexdii maalmood oo u dambeeyay safarka shaqo ku joogay dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington DC ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka kulankan ayaa lagaga wada hadlay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Somaliland arrimo la xiriira iskaashiga nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarinta labada dhinac kulankan oo warbaahinta Mareykanku si weyn saacadii ugu dambeeyay u hadlayeen ayaa sidoo kale lagu sheegay in wafdiga madaxweynaha Somaliland ay madaxda golaha amniga qaranka ee Mareykanka ay ka dalbadeen inay kala shaqeeyaan sidii qadiyadda Somaliland loo horgeyn lahaa golayaasha qaranka ee Mareykanka wafdigan oo wali howlahooda shaqo ku guda jira sidoo kalena waxay kulamo la qaateen hay'adda caalamiga ee dimuqraadiyadda qaranka Mareykanka iyo waliba banka adduunka walow aanay madaxtooyada Somaliland shaacin ujeedada rasmiga iyo nuxurka qodobada dhinacyadu ka wada hadleen haddana xogaha la helayo waxay iftiiminayaan in bangiga adduunka ay kala hadleen wafdiga Somaliland sidii Somaliland gaarkeeda loo siin lahaa wixii mashaariica ee banka adduunku uu ka fuliyo si lamid ah sidii mashruucii madaxtirinta shaqaalaha dawladda ee Somaliland ee banka adduunku uu fuliyay safarkan madaxweynaha Somaliland oo qaadan doona ilaa 10 maalmood ayaa sidoo kalena inta ay joogaan waxa ay la kulmi doonaan jaaliyadda reer Somaliland ee dalka Mareykanka si weyn ayaa isha waxa loogu hayaa safarkan madaxweyne Biixi iyo wafdigiisu ay ugu baxeen dalka Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa ciidamo hor le keenaysa Soomaaliya xilli ciidamadeeda dhawaan ay duqeymo hor le ka fuliyeen qaar ka mid ah gobolada dalka Mareykanku wuxuu sheegay in ciidamada dhawaan uu keenayo Soomaaliya uu ka qayb qaadan doono dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab oo inta badan weerar toos ah ka geysta guud ahaan gobolada Soomaaliya Ciise Cali Maxamuud ayaa mar kale faahfaahinta warkan eegaya dawladda Mareykanka ayaa lagu wadaa inay ciidamo keento Soomaaliya si ay u xakameeyaan qatarta ururka Al-Shabaab ee sii kordhaysa sida uu taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika u sheegay senatarada dalkaasi General Stephen Townsend ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka mid tahay kooxaha adduunka ugu kobaca badan ugu dakhliga badan isla markaana khatar ku ah Mareykanka iyo joogitaankiisa Soomaaliya Townsend ayaa ka codsaday aqalka cad in dhowr boqol oo askari loo diro Soomaaliya sida uu qoray wargeyska Wall Street Journal toddobaadkii hore xildhibaanada ayaa talaadadii sheegay inay taageersan yihiin in la kordhiyo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya Senator James Ogla oo xubinta ugu sareysa ee guddiga adeega hubka ee Senatka ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo amarkii maamulkii Trump ee ahaa in ciidamada Mareykanka laga soo saaro Soomaaliya laguna tiirsanaado awoodda hawada sare ee ka hortagga waxa uu ugu yeeray argagixisada Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Mareykanka ayaa hadda u muuqda mid ahmiyad gaar ah siinaya dagaalka uu kula jiro kooxda Al-Shabaab sanadkan labadii duqeyn ee ugu horeysay ayuuna ka fuliyay gudaha Soomaaliya dawladda Mareykanka ayaa si weyn uga qayb qaadata dagaalka ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kula jiraan kooxda Al-Shabaab oo inta badan ka dagaalanta gobolada dalka guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaaciyay qabashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaana waxa ay shaaciyeen 16 kursi ee taala deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee degmada Garbaharre ee xarunta gobolka Gado 16 kursi ayaana la filayaa in dhawaan ay jadwalkoodu ay ku dhawaaqaan guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland lamana oga halka sida rasmiga ay uga dhacayso doorashooyinka kuraasta 16 kursi ee taala gobolka Gado. guddiga doorashada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaaciyay qabashada 16 kursi ee taala deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee magaalada Garbaharre ee xarunta gobolka Gado. qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka maamulaya Jubbaland ayaa lagu yiri ku socoto guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ee FIT oo guddiga xalinta khilaafaadka xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ujeedo shaacin 16 kursi oo dhammaan taala deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharre. guddiga hirgelinta doorashada dowlad goboleedka Jubbaland ee SID oo fulinaya waajibaadka doorashada sida ku cad heshiiskii madasha wada tashiga qaran ay ka gaareen doorashooyinka dalka. waxaan halkan ku shaacinaynaa 16 kursi ee ka harsan kuraasta golaha shacabka ee loo asteeyay Jubbaland oo doorashadooda lagu qaban doono muddo 2 toddobaad ah. kuraasta ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa kala hob 65 hob 78 hob 87 hob 90 hob 91 hob 100 hob 102 hob 110 hob 116 hob 117 hob 119 hob 122 hob 123 hob 125 hob 131 iyo hob 216 16 kursi ayaa taala deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharre waxaana lagu wadaa in dhawaan ay qabsanto doorashada 16 kursi ee taala magaalada Garbaharre ee xarunta gobolka Gado iyo guud ahaan gobolka Gado. ma cadda ilaa hadda 16 kursi goobta sida rasmiga loogu qaban doono maamul goboleedka Jubbaland ma shaacin halka ay ka dhacayso doorashada 16 kursi inkastoo loogu talagalay inay ka dhacdo deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharre balse xilligan waxaa jirta xanaf siyaasadeed oo u dhaxaysa maamulka gobolka Gado uu hogaamiyay Axmed Buule Gareed iyo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya dhawaan guddi u magacaabay soo qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ee Garbaharre ayaa gabi ahaanba loo diiday inay tagaan magaalada Garbaharre ee xarunta gobolka Gado. taasi ayaa keentay in xilligan khilaafyo hor leh soo kala dhaxgalo madaxda dowladda dhexe uu hogaamiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Gado xilligan horkacayo Axmed Buule Gareed. lama oga ilaa xilligan halka sida rasmi ah uga dhacayso 16 kursi oo loo asteeyay gobolka Gado ee xilligan doorashadoodu ay ka dhacdayd magaalada Garbaharre ee xarunta gobolka Gado balse maamulka Jubbaland iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo xilligan u xilsaaran amniga iyo doorashooyinka dalka ayaa la filayaa inay shaaciyaan goobta sida rasmi ah uga dhacayso 16 kursi oo taala gobolka Gado. ruushka ayaa cunuqabateyn ku soo rogay madax sarsare oo ka tirsan dowladaha Mareykanka iyo Canada. dowladda ruushka ayaana sheegtay in madaxweynaha dalka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Canada iyo saraakiil sarsare ay xilligan ku dartay liiska stop listiga kuwaas oo gabi ahaanba ay ka mamnuucday in ay soo galaan gudaha dalkeeda. ruushka ayaa sheegay inuu cunuqabateyn ku soo rogay madax ka kala tirsan dowladaha Mareykanka iyo Canada. dowladda ruushka ayaa sheegay talaadadii in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo 10 ka mid ah saraakiil sarsare oo Mareykan ah ay gelisay liiska stop listiga ay ka mamnuucday in dalkeeda ay soo galaan. Joe Biden ka sukow saraakiisha Mareykanka ee liiskan ku jira waxaa ka mid ah xogayaha daafaca Lloyd Austin, madaxa CIA-da William Burns, la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan, xogayihii hore arrimaha dibadda iyo musharax madaxweyne Hillary Clinton. mamnuucidda ayaa jawaab u ahayd cunuqabateyn ay Washington ku soo rogtay saraakiil sarsare oo dowladda Ruushka ka tirsan. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa markii dambe ra'iisul wasaaraha Canada Trudeau ku dirtay liiska shakhsiyaadka xilligan la cunuqabateeyay. cunuqabateynta Ruushka ayaa u muuqata mid gacan ku yaala iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay inay sii wadayso xiriirka rasmiga haddii loo baahdo inay xaqiijiso in xiriirka la sameeyo dadka liiskan ku jira. dowladaha Shiinaha iyo Soomaaliya ayaa ka wada hadlay iskaashiga gaar ahaan dhinaca duulimaadyada. dowladda Shiinaha ayaana Soomaaliya u ballan qaaday in ay kala shaqeyn doonto arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha duulimaadka oo si weyn xilligan dowladda Soomaaliya u baahan tahay in garab istaag laga muujiyo sida uu dhawaan sheegay wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliya.
baaji cabdulaahi ayaa faahfaahintan ka badan haysa. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa maanta la kulmay danjiraha dowladda Shiinaha ee Soomaaliya danjire Fishinjown. wasiirka iyo danjiraha Shinjown ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dal gaar ahaan dhanka duulimadyada rayidka ah, waxaana uu wasiir Duraan sheegay in danjiraha dadaalkiisa in kor loo qaado xiriirka iskaashi ee labada dal. dowladda Shiinaha waxay naga caawisaa dhinaca horumarinta gaadiidka cirka iyo duulimadyada rayidka. Soomaaliya waxay hiigsanaysaa in heerka maamulka hawada la gaarsiiyo heerka A oo ah kan dunida horumartay joogto, ayuu yiri wasiir Duraan Faarax. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya ayaa horumaro badan sameysay tan iyo markii wasaaradda loo magacaabay wasiir Duraan Faarax. madaxweynaha dalka Ukraine ayaa sheegay in rajo wanaagsan uu ka qabo wadahadalada xilligan ee la leeyihiin dhigiisa Ruushka. madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in wadahadalada ay la leeyihiin Ruushka ay haatan u muuqato kuwo macquul ah oo laga gaari karo natiijo mid dhala. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in wadahadalada ay la leeyihiin Ruushka ay haatan u muuqato kuwo macquul oo yeelanaya natiijo mid dhala. hadalkan ayaa yimid ka gadaal markii mar kale ay soo fadhiisteen xubno ka kala socday Ukraine iyo Ruushka. muuqaal la baahiyay ayaa sheegaya in Zelensky ay soo baxayaan mowqifyada wada xaajoodyada iyadoo ay jirtay faalo wanaagsan. wadahadalada u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa lagu wadaa in xilli dambe ay maanta sii wadaan, iyadoo madaxweyne Zelensky oo ah madaxweynaha Ukraine uu sidoo kale khudbad ka jeedin doono Kongareeska Mareykanka maanta oo Arbaca. guud ahaan khiyaartana daawanaysa wareeginta warkii aad kala socoteen telefishinka Rais, anigoo Anas Maxamed Soomana warka soo saaray halkaan idin kala socodsiinayay. inta ku kulmi doono warkaan warkiisa xiga, sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.